ka og tahay kala duwanaanshaha u dhexeeya ragga iyo dumarka? Ragga iyo dumarka waxa uu Ilaahay ugu talagalay qaarkood qaarka kale inay is-dhammaystiraan. Gabadhu keligeeda ma ahan mid dhammaystiran, ninkana sidoo kale keligiis ma ahan mid dhammaystiran. Sidoo kale qaarkood qaarka kale waxyaabaha ay ka wada siman yihiin balse ay u kala qabtaan qaabab kala duwan. Intaan muuqaalka aan bilaabin, haddii aan kugu xujeeyo sheeg 3 waxyaabood ay ragga iyo dumarka ay ka siman yihiin balse saameyntooda ay kala duwan tahay. waxaad ku jawaabi lahayd commentiga noogu reeb. si aan muuqaalkan u bilowno, subscribe, like, commenting inta waa xaggiini. iyo dumarka si walba ay biology ahaan u kala duwan yihiin, laakiin kala duwanaantan waxay dhalisay in ay waxyaabo kale ay ka siman yihiin, qaababka kalena ay u qabtaan. astaanta koowaad, rag iyo dumarku waxa ay ku kala duwan yihiin xataa qaababka dharka ay iskaga bixiyaan. qofka ragga ah waxa uu iskaga bixiyaa si toos ah, iskumana dayo inuu xaliyo kalisyo iyo wixii la mid ah. laakiin dumarka dharka waxa ay iskaga bisaaraan waa mid totally ka duwan ragga. astaanta labaad waa gacan muujinta. haddii aad fiiriso ragga iyo dumarka gacantooda marka ay muujinayaan, badanaa dumarka waxay qariyaan calaacashooda, waxa keliya ay muujiyaan farahooda qasab la'aan, halka raggu si toos ah ay gacanta oo furan u muujiyaan. astaanta saddexaad waa hamaansiga. ragga iyo dumarka hababka ay u hamaansadaan. dumarku xilliga ay hamaansadaan faraha ayay afkooda ku qariyaan, halka raggana ay farahooda laaban ama calaacashooda ay ku qariyaan. astaanta afaraad, maqalka codka. dumarku waxa ay aad ugu horeeyaan maqalka, maskaxdooduna waxa ay u barogaraamsan tahay ilmaha. haddii uu canuga ooyo, xataa raggu ma aysan maqlaan, balse dumarku si toos ah ayay u maqlaan, meel fog xataa waa ay ka maqlaan. astaanta shanaad waa qabashada shaqooyin. raggu waxa ay u barogaraamsan yihiin hal shaqo ayna ka soo baxaan. haddii aad la hadasho ama aad mashquuliso qof gar xiiranayo, waxaa suuragal ah inuu isqalo, bogteeduna waa miduusan kontarooli karin hal shaqo wixii ka badan. balse dumarku tani waa ay ka duwan yihiin. gabadhu waxa ay qaban kartaa dhowr shaqo oo kala duwan hal mar si qalad la'aan ah. tanina waxaa lala xiriiriyaa malaayiin sano silsilada horumarka aadanaha ee evaluation-ka. lixaad, xalinta problemyada. badanaa haddii ay gabadhu dhibaato haysato, waxa ay la qaybsataa saaxiibkeeda, hooyadeeda, xataa social mediaha si waafaqsan ugu soo boostigarayso si ay xal ugu raadiso. balse raggu inta badan lama qaybsadaan problemkiisa, qofna waxa uu isku dayaa inuu keligiisa xaliyo. fadlan subscribe, like, comment.